بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka baranno weydiinta ah what is a dividend. Erebixinta dividend ama faa'iido bixinta shirkadaha waxaan ku qeexi karnaa waa saami qaybsi loo sameeyo dadka iskale shirkadda. Haddaba in la siiyo dividend ama faa'iido waxa ay ku xiran tahay haddii ay shirkadda soo saartay faa'iido, waxaana go'aanka iskale in faa'iido la bixiyo in kale maamulka sare ee shirkadda board of directors. Marka la bixinayo faa'iidada ama dividend waxaa loo fiirinayaa saamiga ama sheerka uu ku leeyahay qof waliba shirkadda. Marka faa'iidada la bixinayo waxa ay noqon kartaa in milkiilayaasha shirkadda loo siiyo lacag ahaan ama in loogu bedelo saami dheeraada additional shares. Haddaba bixinta qayb ka tirsan faa'iidada waxa ay sare u qaadaa kalsoonida ay maalgashatada ku qabaan shirkadooda. Sidoo kale xajmiga bixinta faa'iidada waxa ay ku xiran tahay waxqabadka shirkadda, oo haddii ay faa'iido badan soo saartay wax badan ayay helayaan shareholderska. Haddii kalena waxa iman karta cagsigeeda oo ah in faa'iido yar ay helaan ama in board of directorska ay go'aansadaan inaanan la bixin wax faa'iido ah. Xog dheeraada oo ku saabsan erebixinada board of directors, share iyo shareholders fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay. Mahadsanidin, waa inoo markale haddii Rabbi idmo.